kani waa hoolka furitaanka xafladda safaaradda dalka Mareykanka ee laga furay dhulka barakaysan ee magaalada Qudus taasi oo ay si xoog ku haystaan Yuhuudda Israa'iil balse wali hardan dagaal ay kula jiraan walaalaha muslimiinta ah ee reer Falastiin waxay ahayd dhacdo la yaab leh taasi oo dunida muslimka ah iyo qaar ka mid ah kuwa aan muslimka ahaynba ka yaabisay laakiinse waxaa jirtay waxyaabo kale oo xafladdu intii ay socotay ka soo dhex muuqday oo la yaab ahaa si dhow bal u fiiri ninkan odayga ah maxaad ka taqaanaa maxayse kula tahay inuu halkan u joogo kani waa Sheldon Adelson waa 84 jir Yuhuudi ah hadda wuxuu si ka badbadaysa u aflagaadeynayaa muslimiinta reer Falastiin I can never figure out what the virgin did to deserve that. ninkii la dilo isagoo shahiid ah waxa uu galayaa jannada waxa uu qaabilayaa 72 xuural cayn ah ma garanayo waxa ay sameeyeen xuural cayntu oo dambi ah si waxa oo kale ugu sameeyay iyagana ma garanayo sababta aan dadka noocaasa ula hadlayno Falastiiniyiinta iyo sababta aan u dareemayno in aan ku qasbannahay ka hadlidda xal u helidda laba dawladood waa shaqsigii ka dambeeyay hirgelinta iyo dahka qaadida safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus wuxuuna tilmaamay inaysan jirinin haba yaraatee wax la yiraahdo shacabka reer Falastiin iyo waliba dhul ay leeyihiin waa maalqabeen hantidiisana waxa ay gaaraysaa in ka badan 44 milyan oo dollarka Mareykanka lacagtiisa waxa uu adeegsadaa inta badan faafinta iyo aflagaadooyinka iyo waliba sidoo kale wiiqida awoodaha reer Falastiin u taag waxa uu si daran u taageeraa hogaamiyaha dalweynaha Mareykanka waxa uuna ku raaxaystaa go'aanada qalafsan ee ka dhanka ah muslimiinta kuwaas oo mararka qaar uu soo jeediyo Donald Trump dhanka kale waxa uu saaxiib dhow la yahay hogaamiyaha Israa'iil Netanyahu waa mulkiilaha wargeysa bilaasha lagu akhriso kaasi oo ka soo baxa gudaha Israa'iil laguna faafiyo waxqabadka madaxtooyada xukuumadda Israa'iil sanadii 1991 waxa uu guursaday dhakhtarada caanka ka ah gudaha Israa'iil ee Mariana Aksharona waxayna xalfadoodii ka dhacday gudaha magaalada Qudus taasi oo noqotay mid hadal hayn badan dhalisay kadib qarashaadkii waalida ahaa ee ku baxay arooskaas iyo waliba halka uu ka dhacay oo ahayd magaalada Qudus oo dhulka ay xoog ku haystaan Israa'iil 1996 Adelson waxa uu taageero waali ah u muujiyay ololihii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isagoo Netanyahu dartiis u furay wargeyska Israel Hayom ama Israel Today oo si bilaash ku soo bixi jiray laguna akhrisan jiray waxaana wargeyskani lagu maalgeliyay in ka badan 180 milyan oo dollar ujeedkiisuna waxa uu ahaa in uu bidaamiyo sawirada ololaha iyo sidoo kale faafinta aragtida midigta fog taasina waxa ay noqotay in uu wargeyskan Hayom uu noqdo midka ugu sareeya gudaha Israa'iil looguna akhriska badan yahay Adelson waxa uu bixiyay 50 milyan oo dollar si uu ugu dhiso dhismaha madxafka Holocaust oo uu ka dhisay Qudus halka uu 25 milyan ku bixiyay dhismaha jaamacadda Ariel oo iyadana laga dhisay isla Qudus dhamaantood dhismayaashan waxa laga dhisay dhulka muslimiinta reer Falastiin ee xoog ku haysan Israa'iil dhanka kalena Sheldon waxa uu maalgeliyaa hay'adda tagliid ee isku xirta safarada xoojinta Israa'iil iyo Mareykanka taasi oo uu ku maalgeliyay lacag gaaraysa 80 milyan oo dollar waxaana barnaamijkan ka faa'iideystay in ka badan 600 oo kun oo Yuhuud Mareykan amaanta Adelson Sheldon ayaa ahaa qofkii ugu caansanaa dadkii rumeeyay ariyadii waalida ahayd ee Mareykanku in uu safaarad ku yeesho dhulka barakaysan ee Qudus dhowr bari ka hor inta aan la furin safaaradda waxa uu wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka u ballan qaaday 500 oo milyan oo dollar sida awgeedna maalintii furitaanka safaaradda waxa dabiici ahayd in uu istaago safka hore halka wasiirada Netanyahu ay ahaayeen kuwa taagan safka ka dambeeya Adelson waxa dhinaciisa taagneed haweeneyda lagu magacaabo Ivanka Trump balse Trump guddiisa waxa uu ku kasbaday ololihii doorashada Donald Trump isagoo oona 200 oo kun oo milyan ku qarash gareeyay faafinta sawirada Trump iyo xisbiga jamhuuriga doorashooyinkii hore ee dalka Mareykanka